السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر والصبح، ثم يعرج الذين باتوا فيكم وهو أعلم بهم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، إلهي بaan ku mahadinaynaa salaada casr ina soo waafajiyey inaan jamca la soo xaadirno. waa salaad aada u qiimo badan weeyaan. nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiidka aan akhrinay waxau inoo sheegayaa insaankan dushiisa malaa'igtu inay isku bedilayso, malaa'igta gaarhka qabata, malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta dharaartii. kuwii maanta inala oolay casarkii markii la tukaday bay noqonayaan. kuwa casarka intay yimaadaan caawa inala baryana salaada fajar markaan tukanay noqonayaan. xaggay ka yimaadeen bay ku noqonayaan dhinaca ilaahay jalla wacalaa. malaa'igtii inala bariday markay ilaahay dhinaciisa u laabaan ayuu ilaahay weydiinuu leeyahay: addoommahaygii seed kaga timaadeen? wuu og yahay addoon kastoo innaka inaga mida xaaladda uu ku sugan yahay ilaahay waa ka warqabaa. inta adeecaysa iyo inta caasinaysa ilaahay waa ka warqabaa. inta gaajoonaysa iyo inta dharagsan ilaahay waa ka warqabaa. inta bugta iyo inta caafimaadka qabta ilaahay waa ka warqabaa. inta dhimanaysa iyo inta dhalanaysa ilaahay waa ka warqabaa. inta murugsan iyo inta faraxsan ilaahay waa ka warqabaa. saacadda inta soo islaamaysa hidaayadda ilaahay ku galladaysanayo iyo inta gaalnimada ku dhimanaysa ilaahay waa ka warqabaa. haddana ilaahay isagoo sharfaya addoomihiisa muuminiinta ee salaadaha ilaaliya, jamaca ku ilaaliya, isagoo ilaahay sharfaya ama sheegid laynoo sheegaya salaada casar qiimaha ay leedahay ugu fadhida diinta islaamka, ayuu ilaahay weydiinuu malaa'igtiisa ku leeyahay: kayfa taraktum cibaadii? seed kaga timaadeen addoomahaygii? markaasay leeyihiin: ayakoo tukanayana waan u tagnay, ayakoo tukanayana waan ka imanay bay leeyihiin. allah inaga dhiga kuwaas. maalin walba qaa'imadaabaa ilaahay la horgeynaya. ka warrama magacaaga haddii laga hela ka warran. maalin walba sooma liibaanin. haddii magacaaga qaa'imadda laga waayose khasaare. leanna bani aadamkan ilaahay kuma qiimeeya maaragtaanay jirhkooga ilaahay kuma qiimeeya bani aadamka. waxay haystaan ee bannaanka ka yaalana ilaahay kuma qiimeeyo. ilaahay bani aadamka waxa uu ku qiimeeyaa waa diinta, waa ilaahay taacaddiisa, waa ilaahay xadhiggiisa, waa ilaahay awaamirtiisa. qofka bani aadamku markuu qaato ayuu qofka bani aadamku qiimo yeelanayaa. qofka ilaahay diinkiisa ayaa qof ka dhigaya. diin la'aan qofku macno yeelan maayo. ogow, qofku qabiilkiisu macno u samayni maayo, lacagtuna macno kuu samayni mayso, aqoonta adduunyada aad leedahayna macno kuu samayni mayso, waddankaad ku nooshahay nuucuu yahayna macno kuu samayni maayo, darajada adduunyadae taagan tahayna macno kuu samayni mayso. qofka bani aadamka waxa macnaha u samaynaya waa ilaahay taacadiisa. kayfa taraktum cibaadii? salaada subax iyo salaada casar malaa'igtaas bedelaysa.
الباب أيا جرى السماء الدنيا وعيلات هاي الله فرق ما لنتي مربى الله فرق النبي شيء صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر كهر بان النبي لا أركي سقوا أفر ركعة كناية مرقاب الصحابة كل هذين ساعدا صلاة أفر ركعة الله وضع أتوكتي معناها يكفر النبي الله ونوشك مرقاب النبي يقول وساعد الباب سماء الدنيا وعيلات هاي الله فرق marka waxaan jecelahay uu nabigu yiri amal wanaagsan inuu saacada xaq ilaahay u gaaro amal wanaagsan inuu fuulo samada ayaan jecelahay uu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam ajiib waxa kale nabigu noo sheegay isniinta iyo khamiista labada cisho nabigu waa soo jiray soonka labada cisho aad soomaysa noo sheeg baa lagu yiri wuxuu yiri yawm al-isniin wa yawm al-khamiis amalka bini aadanku ay qabtaan baa ilaahay la horgeeyaa الله هردقيا خير يا الشر وحي أتشقيسا إله الهردين أدون كستو إلهي أنو الشريك يلين دنبقي سوالا دافي برسولك صلى الله عليه وسلم لكن لما قف ودحدو داسي أي جرت عداو إلهي وحير هذا كوى الليس كوغا كوى عمل كوغا هفورين عليا إلا دحدو دا أي اسكسو سامح يان اسكه جينيان إلا إذا سامح يان يكوس عفنا يان عمل كوغا هفورين وإلهي دادا هبينك ليلة الإسراء والمعراج سمد الدنيا مركي نبينا عليه الصلاة والسلام أي قارين سقي جبريل البابك سمدو قراعي مركاسو يروا أيا اللغورة وجبريل أيا كل السعودة اللغورة محمد بإلى السعودة ميا الله يرى هوا الله يرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن مركز الملائكة أيدادين أدون كان الله يرى ربي ويرى أيا نعمل بيدادين الردي بكفرين وسمد الدنيا لأن مركز النبي وحول لكل مي شخصي إلهي أوسي قامت درر يقرح لكن مركو حق مديق إيغا شخصي سوا فرحا حق بدح مركو إيغانا أمرون يعني مركابو النبي يقول جبريل يقول عدون كان أودا إلهي سيب قرحنا له مركابو يقول آدم عليه السلام أبو البشر ويان وآبها أبونا آدم ويان 60 ذراعا في السماء نبي آدم ينتول لك قال لحظة حصول لك در لأن مركز وما حي مركو حق مدق إيغانا أو فرحيا حق بدح مركو ديمودانا أو مرغونا يا حق مدق وحا أو أركاء الله تصاع أولاد ديس إنت وناكسن الجنة قال يسا الله تصاع لأنه كفرحا حق بدح بو إيغي ilmihi sa inta xun ee naar ku daadanaysa ahla naar noqonaysa la tusaaba lagu yiri dadna uu ka murugooda marka amal wanaagsan hadaad sameeyso aabaha aadan baad ka farxisay ugu amal xun oo naar lagu galaya hadaad sameeysana aadam alayhi salaam baad ka murugsisay ugu adiga matalan iyo aniga ka soo qaad ubadkeena arurtaada marka mid wax wanaagsan lagaaga sheegana waa farxi mid marka wax xun lagaaga sheegana waad ka nixisoo maaha aadam calayhi salaam oo ubadkiisa dhan adduunka ay wada joogaan oo inta fiican iyo inta xun waliba inta xun ay ka badan tahay inta wanaagsan intee buu nebi aadam murugoonaya markaas murug maalinka qiyaamahana banka qiyaamo marka la yimaado ee bani aadanka cadaada sida loo dulkeena madaxooda ee qof walba dhididka asaga jirkiisa ka baxay uu dhulka intuu galo dib u soo noqdo ee qof walba dembigiisu intuu ahaa dhididkiisu yimaado qaar baa nabigu sheegay dhididkoogu wuxuu iman doonaa kuraamaha qaar buu iman doonaa maaragtaane jilbaha qaar buu iman doonaa maaragtaane halka guntiqabadka dhixirka halka mardhexda qaar buu iman doonaa halka maaragtaane garbaha qaar buu iman doonaa buu nabigu yiri halka qowlalada wa minhum man yuljimuhum al'araqu iljama halkaasoo iman doona dhididka qof walba isaga ka dhacay ayaa inta dembigiisu ahaa ayaa soo gaadhi doona yani waa bad adiga ku gaaro cid kale kula qabin adaada halka inaga gubaysa bini aadanka saa loo duldhigi doonaa madaxooga
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا بإلهين يموج ساسا الله سكون نحسو عندنا خلقك إلهي أبو ريونا markaasay oran doonaan dadku oran doonaan dhibaatada maanta aan ku jirno ayaa inaga saari kara bas kee ilaahay u dhow oo nu tagnaayo rabbigii nooga ergeeya markaas la oran doonaa aadam calayhi salaam aabaheeni aadam aan ka farcamnay oo basharka oo dhan aabba u ah oo nabigii ugu horeeyay bani aadamkan asagu ahaa ilaa nabi aadam nabi buu ahaa kaaba loo imanaya marka aadam calayhi salaam oo oran doonaa اشفع لنا ربك ربك نوغا ارجي مانتا نو شفاعه دل وادو جيدا dhibaatada aan ku jirno meel aan u dhaqaaqayna ma garanayno wala qaawan yahay la qatan yahay adcaada halka inaga gubaysa madaxa bini'aadanka saa loo dul keenay bal hal saaca maanta cadaada la joogso ma karayst maxaad u malaynaysaa 50,000 oo sanadood baa banka qiyaamada la taagnaanay markaa buu nabi aadam leeyahay oo jannada dhanba ma kaga soo baxdeen ilaa gafkaygii mooyaane jannada janna aadam calayhi salaam markii la abuuray janna ilaahay geliyey jannadii maxaad kaga soo baxdeen waa gafkaygii anu waan gafay buu leeyahay waan dambi baan galay dambigaasi muxuu ahaa fakulaa minha xayثu شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين جنة واتاس كل حياة بإلهي كيري ماشى دونتان كمرة واحد دونتان كدح عنا لكن جيت كاس أود وأنا بإلهي جيت كاس هذا جيت كا أود واتان ظالمين تتكمل نغني سامع لويري آدم عليه السلام جيت كيف عنا صدوق عنا جيت كان ليلو إبليس عليه اللعنة oo marka horeba ku dhaartay aadam iyo duriyadiisa inuu jannada ka dheerayn doono oo dariiqa xaqana uu ka dheerayn doono ayaa maaragtaan yiri ya aadam geedka lagu diiday cunidiisa ma taqaana fawaayida ku jirta ma garanayno sagay xawa wuxuu leeyahay hadaad geedka cuni lahaydeen ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama waligiin iyo allihiin jannada ku wari lahaydeen bal wili wala wada sifaa binaadamku mulki buu jecel yahay mulki daa'ima نولل دائمة راحة دائمة برواقة جوكتا تانا جنة بيت الله يفكما تعالى لأن الشيطان كيف أمرك ميشن تاغن ونبي آدم جيت كي مركو عنيبا جنة لغا سو صاري يوم الجمعة لغا سو صاري بعد صلاة العصر جمعة الله أبوري جمعة جنة لقليي جمعة جنة لغا سو صاري جمعة ساعة قيامة دعي دونتا مالنت جمعة ساعة الإجابة كجرتو دعاء الله أقبل آية كدح جرتا يوم الجمعة النبي آدم الله أبوري بعد العصر مالن جمعة جنة لقليي مالن جمعة جنة ولغا سو صاري النبي آدم قفك الجنة لغا سو صاري نوا قفك بوها فقيت كاسعوني بس فحالك أن كفهمنا إليه العلماء لغا فهما مركزتو بني آدمكو أي ذنبي أي كل عان إلهي الرحمة دي سيكسي ديرانا يعني مركزتو الطاعة يا خير التي معدنا إلهي نحريستي سي جندي سي رضيه سي بدو سي دواتي آدم عليه السلام وحو جنة دنبا دنبيغي أنوان قلمت كقصو بحدين أرضو أوتك غير كي نوح بالله إيمان عليه السلام نبي نوح وحو ليها يسقنا وارن أنا الرسول الله أقوه الرئيي لكن دعادي دي لأقبلها وأنا أدونك كسو استعماله ومدى يدكو حباريين لي رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا رب إني مغلوب فانتصر وأنا إيري ما دام دعادي كليا لأقبلها أدونك أنا مدى يدكو كسو حباري كدعادي سلا أقبلها ما أنت أنا معها شفاعتنا أنو مليه بوليه اذهبوا إلى غيري إلى إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم بالله إيمان نبي إبراهيم مركي الله ما دل إلى خليلك إلهي بعطاه صاحبك إلهي ما شفاعة قاد وعلي صدح بيننا دويد دوشة كوس وشيء أيان ما تكبق يا إن لقوا قفت بوليه تبي سبين صدح كليه إنك ما أنت تبي سبين بينك دعلا والنور الشيء سي أردم بكرة نبي إبراهيم صدح بين بالله يا دعلا صدح ذي بان كبق يا مانتين ليقول عقاب والله يقول قبته صدح ذا بين سديك لا هايين بين تكوباد وحي هيد
maalintuu nebi ibraahim u damacsanaa asnaamtan ay caabudayaan inuu ka jajabiyo ee la yidhi waa ciid oo magaalada cidna ku hadhi mayse bannaanka uga soo baxa aqallada maalintii la yidhi ayaa weliba ciidan loo diray aqalladoo la yidhi dadka ka soo saara boqorkii baa wada doonayee askartii markay nebi ibraahim u yimaadeen wuxuu yidhi anu ma socon karayo waan xanuunsanahay buu ku yidhi faqaala innii saqiim anu waan bukaa buu yidhi waa jiranahay runtii uu jiranaa muxuu ka jiranaa dadkan gaalnimada ku dhimanaya ee dhagax gacantooda ay ku sameeyeen caabudaya baahidooda u sheeganaya waa wax laga xanuunsada weeyaan innaka taariku salaagu muuna xanuujiya ya meel kasta macsi baa ka dhacaysa kama damqanayn ibraahim calayhi salaam dadkan gaalnimada ku nool buu ka damqanaya ee shirkiga ku jira laanna shirkigu waa dulmi la galo ka ugu weyn luqmaan alxakiim inankiisa muxuu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim ilaahay khayrkii oo la baryaa ilaahay khayrkii oo la tala saartaa ilaahay khayrkii oo laga baqaa ilaahay khayrkii oo la rajeeyaa ilaahay khayrkii oo maaragtaane baahida loo sheegtaa waa shirk ina shirka la dulmun cadiim buu yidhi maadaama qoryo aad samaysateen dhagax gacantiinna aad ku samaysateen aad baahidiinna u sheeganaysaan waa shirki weeyaan ilaahay waad u shariig yeesheen ilaahay looma shariig yeelo ilaahay keligii in la baryuu mutaystay bas taasaa markaa nebi ibraahim xanuujinaysa isaga innakana maanta aqalladeennii asxaabteennii qaraabadeennii ehelladeennii meeqaa bilaa salaada meeqaa u socota sidii ilaahay uusan raalli ka ahayn yaa ka damqanaya maanta mid walaalkaaya hadduu jiran yahu xanuunsan yahay waad u damqanoo markaaba dhakhtarkaad geyn hadduu gaajoonayo markaaba cunnaad siin hadday reerkiisii dhib ku dhacday dhibaatadaa waad uga damqan laakiin salaad la'aan cid ka damqanaysa maanta way yartahay dhibta ugu weyne maanta ummadda ku dhacda waa maxay agteennii baa nuqsaan diineed ay taallaa oo dadkii ehelladeennii maalinba maalinta ka dambaysay ilaahay ka fogaanayaan kama murugoonayna kamana damqanayno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi innii saqiim anu waan jiranahay buu yidhi beeni waa taas kolkay ka tegeen waa ka asnaamtii buu qabto uu jajabiyey kii weynaa buu reebay bas faaskii uu ku jajabiyeyna kii weynaa buu qoorta u sudhay magaaladii markii lagu soo noqday meeshii macbadkii ay yimaadeen bay yidhaahdeen ayaa aalihadeennii sidaa u jajabiyo u galay waxay yidhahdeen magaalada qof kale kagamanu tegine yarkii yaraayo ibraahim baanu kaga tegnay keligii bas weliba ibraahim waxaa lagu yaqaanay asnaamteenna mar walba uu caayi jiray ibraahim calayhi salaam aabbihii aazar ayaa asnaamta gacantiisa ku samayni jiray beedna intuu u dhiiba asaga oo yar buu ku odhan jiray oradoo magaalada inoo geeyo suuqa dhigoo inoo iibgee markaabuu nebi ibraahim intuu xagga kaga soo xidha xadhig ama xagga ayuu dhulka jiidi jiray markaasuu odhan jiray man yashtari minii ayaa aniga iga gadanaya man laa yanfac walaa yadur midaan dhibiya dheef midna aanan lahayn kiine baa iga gadanaya buu odhan jiray ilaa nebi ibraahim aabbihii lagu soo dacwayo la yidhaahdo yarkaaga ilaahyadeeda ha nooga dhiibin uu naga aflagaadeynaya maalin walba cajiib waa nebiga isaga oo yar hooyadii ku yidhi hooy aniga ayaa i rabbeeya yaa aniga i barbaariyo wax isiyo baahideeda daboola markaa bay ku tiri de aniga markaa buu hooy adigana ayaa ku rabbeeyo baahidaada daboola markaa bay ku tiri de aabbaha markaa buu hagaag aabbahayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeyo wax u soo dhiiba markaa bay tiri dee namruud boqorkii markaa buu waa hagaaga namruudna isagana rabbigee ka sarreeyo wax u dhiiba markaa bay dharbaaxa ku dhifatay ku tiri namruud rabbi ka sarreeya ma jiray aamusiyaan lagu maqlinay bay ku tiri markaasuu yidhi hooyo may anu rabbi baan raadinaya rabbigii weynaa ee koonka iyo kaa'inaadka abuuray baan rabaa inaan garta buu yidhi ibraahim fitradii baa yaa dhaqaaqaysa moogta fitra saliima ku jirta qalbigiisa fitrad lehe allah baa koonka ka taliya allah baa wax kuu siiya allah baa wax kaa qaadi kara dhib iyo dheef ilaahay baa haya nolosha iyo dhimashada ilaahay baa haya ciz iyo dulli xagga alluu ka yimaadaa faqriya khina ilaahay baa keena xanuunka iyo caafimaadkana allah baa keena cid kale ma keento
ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayni jiray asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asagaa jajabiya la yidhaha la soo qabto maxkamaddii baa la keenay maadaa sidaa u galay qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun buu yidhi in kaanuu yantiquun maadaa sidaa u jajabiya maya ka ogi weynaa waa kan baad arkaysaa mufaaska qoorta ku sita isagaa cadhooday oo xanaaqoo yidhi aniga yaryarka sidee layla caabudaa harka isaga weydiiye buu yidhi beenta labaadina waa taas bal labada beenood horta ee ugu horraysa cajiib soo maa beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad doon saaran ayaa waxaa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaana intuu ragga ka qaato faraxumeeya markaasuu nebi ibraahim xaaskiisa ku yidhi haddaan idhaahdo waa xaaskaygii way iga kaa faraxumaynayaano way ku dhibayaane ragga waxaa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoode waa walaashay baan odhaniye adiguna waxaa tidhahdaa buu ku yidhi waa walaalkay dhabuu ka yidhi beenta saddexaadna waa taas walaalayna ahaayeenoo xagga diintee walaala ka ahaayeen innama almu'minuuna wax dad muslima oo iimaan le labadooda adduunyada ku noolaa baa la yidhi saddexdaa been buu nebi ibraahim uu leeyahay banka qiyaame in laygu qabtaan ka baqayaa meeqa beena innaka jeebadaha inooga buuxda maanta beentii baa iska noqotayba wax iska caadiyadee oday baa inankiisa ku yidhi waryaa aabba beenta iska daa buu ka yidhi beenta iska dhaaf been baa lagugu sheegaya adige beenalow ha noqon markaa buuhi waa yahay aabba hayaa ku noqon maayo waa seexanayaa buuhi odaygu uu yar jeegsado yarkiisiibaa u yimid oo yidhi aabba odaygii hebel hebel ahaa ayaa iridda kuu taaganoo ku doonaya markaa buuhi uu jiifaa ka dhag buu yidhi kii yaraabaa yidhi baleeg aabbahay beentana daa buu leeyahay asagina waa barayaa buu yidhi isagaa macallina buu yidhi yaa macallina aabbihii dhannaabaa macallina mid kale inankiisa ku yidhi waryaa sigaar baad cabtaa baa lidho la dhuudhuumataay maxaa ka jira aabba ciyaalka saaxiibbaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin anuu sigaarka ma cabbo waa hagaaga wuxuu ku yidhi sigaarka ha cabbin buu ka yidhi haya aabbo intuu lacagta soo saaruu ka yidhi waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yidhi anigana beenta innakaa maanta mujtamaceenna barayna ibraahim calayhi salaam uu leeyahay saddexdaa beenood ayaan adduunyada ku soo sheegay intaan joogay in laygu qabtaan ka baqayaa buu yidhi ibraahim alkhaliil marka shafaacadan anigu ma lihiye idhabuu ilaa hayrii muusa loo iman calayhi salaam nebi muusena wuxuu leeyay anuu naf bini aadana ayaan gooyey oo halkii naftii maalinta aan dilay feerhka ku dilay inaan laygu qabtaan ka baqayaa maante idhabuu ilaa hayrii fayaatuuna ilaa ciisa bna maryam nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ba u iman doonaan nebi ciise markii loo yimaado isagu wax cudurdaara sheegan maayo laakiin waxau leeyahay anigu shafaacadan malihi fayadhabuuna ilaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam nebigeennii udgoona calayhi salaatu wasalaam baa loo imani doonaa oo la odhan doonaa yaa muxamed adiga ayaa nebiyada ugu dambeeyey ilaahay dembigaagii hore iyo dembigii dambeba ilaahay waa kaa dhaafay oo ilaahay jalla wacalaa macsuum buu kaa dhigay imaamul ambiyaa baa nebigeenna ilaahay ka dhigay khaatamu nebiyiin baa ilaahay jalla wacalaa uu ka dhigay markaasay leeyihiin noo shafaacad qaad oo ilaahay nooga ergee markaa buu nebigu leeyahay waxaan odhan doonaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadda maanta laga aqbalaya waa aniga idaa samictum almu'adina faquluu mila maa yaquulu uma salluu calaya uma saluu allaha liya alwasiilata man sa'ala allaha liya alwasiilata xallat lahu shafaaca marka aadaanka aad maqlaysaan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'adinku erayada uu leeyahay ka daba dhahada aadaanku markuu dhammaadana aniga igu salliya buu nebigu yidhi wasiilana ilaahay ii weydiiya wasiilo ilaahay ii weydiiya wasiiladu waxa weeyaan waa mansilad jannada ku taalla waa mansilad addoon uu galo ee jannada ugu darajo sarraysa addoon addoommaha ilaahay ka mida uunbaa geli doona addoonkaasina waxaan ku rajo qabaa inuu noqon doono aniga buu rasuulku yidhi ninka wasiiladaa ilaahay ii weydiiya maalinka qiyaamaha shafaacadayda u xalaalooday buu rasuulku yidhi faaquulu ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbaleh maanta oo aniga waan dhaqaaqi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
إلى عرش ربي حق عرش كانوا دقاقي فأقع ساجدا لربي ربي غيبا سجود أدعي دونا وحا إلهي إيثر دونا بود أمان الله أمانتي وأنا هوري أدون كدوشيد أن لو أمان وأنا أن هوري إيسومرين أيام مالنتا إلهي إيفر دونا لأن مركابا إلهي أماني دونا مركابا الأرض دونا يا محمد ارفع راسك مدح كروقات سل تعطى شيغا واحد دونا يسو واحد شيغة إلهي وكسين يا اشفع تشفع ارقد دلب بالأرض يا ارقد هذا والله أقبل يا شفاعات قاد مركاسا الأرض دونا ربي أمتي أمتي الأرض دونا ربي أمتي أمتي ما أردنا يا إنتي فاطمة ما أردنا يا مارتان الزوجة دي عائشة دتك حاسسك ستوجج على عائشة رضي الله عنها دتك كرنا توجج على فاطمة رضي الله عنها سفر هدي كيما دو مساجد كنتو الله بركة عكتو كدو أنت حاسسك سنوسنتك النبي إن أنت سفاطمك بلا بجر الزيارة ده مركب ممكن جرتي عمر بن عاص الله رالك النقضي با صحابه كويري نبي محمد اصحابته انو يغو جعل يحي markaas la go'ay arbilo laga jeclaa cid kale may leegama jeclo nabiga anu dad igu jecel yahay markaa buu waan weydiinaya nabiga u kaadiya markaa ya rasuulallah dadka yaad ugu jeceshahay markaa buu nabigu Aisha dadka ugu jecelahay buu yiri xaaskiisa inta kuninku naagtiisa xaaskiisa inuu yiraahdo dadka ugu jecelahay uu ka xishoonay soo wala oranay islaantiisu jecel yahay عيب معها دعايد معها وعرفي وعشرة النبي عليه الصلاة والسلام ورئيس كل رقمي بدك يا دقوج عائشة يا رسول الله ما حقها وينك حق الرقم يدي ويديسها أبو بكر أبيهن هدنا عمر وانسكا مسيبين وحن كبا قيبون هدان سيودي لها إنه النبي يقدق لها وقفك وقدم بي صحابتي سوج عليها marka nabi maxamed tu dadka ugu xaasaskiisa ugu jeclaana waa Aisha ehelkiisa cid ugu jeclaana waa Fatima banka qiyaamo marka la soo saaro oran maayo ya rabbi Hasan iyo Hussein ban ku weydiinaya ergo oran maayo wuxuu leeyahay ya rabbi ummati ummati ya rabbi ummadayda ummadiisu waa inaka ummadiisu waa asxaabtiisi ummadiisu waa cid alli cidi muslima shahaadanaysa qabuuraha baqiic ayuu nabigu maalin ziyaartay markaasuu u duceeyay dadna markaa ragii la socday buu nabigu soo daymado wuxuu yiri waditu law anni laqiitu ikhwani waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaa bay saxaabadu yiraahdeen nabi allah anaka walaalaha ma nihin miya markaa buu nabigu maaya ininku asxaabtay baatihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku oran doona أكو قدال ما إيمان ولي أدونك لكن وإيمان دونا بالنبي مركب الصحابة دراد أدوكنا ما تسوق قارن وما دركين أيكون كومي أركين القيامة سيدو قرن دون تنوشك وحول النبي يقول حلكي أي ويسد مرين جرين وإفتيمي سوء عد أي بنك قيامة إيمان دونا لأن مركز أكو قرن دونا بقول علامة دي ويسقبك قفك ويسسني كورم يسير قفك كوبكي سولي بي أنا المرين إلهي أنا سجود مسجد أن سوقل حال أبو قرن سجل تذكر صلاة شنطة وقت إلالنا يا بنك القيامة لقو قرن دون أيك متكين هدو لي هاي بو النبي ودي فرضو قوباب كعد ووجهنا كعد هدي لك قاعد يحضر فرد مدو ولا عصعص فردي سمينو كدح سوعنين صحابته ها وكدح قرن دونا markaa buu nabigu ummadaydu banka qiyaama waxaan ku garan doonaa halkay weesada marinayeen oo iftiimaysa iyo iman doonaan buu rasuulku yiri kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooda ku haystay islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayakoo dunuub sameynayeen adduunyada ka baxay ayakana nabigu ka hari maayo جهنم لغو غوري إلهي جل وعلا مركو نارتا جهنم وكغا أرغوستو أيا كوا قالada oran doonaan diintii islaamka u nisbad sheeganayeen hame waxbay inay qabatay sawnaka meel kaliya ku wada jirnama
hal mar kaliya ayay odhan doonaan waa muxammadaa waa muxammadaa waa muxammadaa markaa buu nebigu odhan doonaa yaa rabbi kuwaa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummadaydiiyo waa cusaaddii ummaddaydee cadaabkaa intaad cadaabtay ayaad kaga argoosatay ilaahayow ilaahow shafaacaddeeda ayakana gaadhsiiyo naarta jahannamo ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nebigu yidhi iyakoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog mara oo la yidhaha magaciisa nahrulxayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi deedna markaasay soo biqlayaan sida geedka u soo baxo ayaa jidhkoogiibaa soo bixi doonaa deedna marka jidhkoogu sidoodii uu ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxamed kuwaas waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaaddii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegay naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasina waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allahdii adduunyada aad ku lahaydeen hamay waxba inii qabatay odhan doonaan sawnaka meel keliya ku wada jirnama inninkoo laa ilaaha ila allah leh deedna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله وكسوا بحدنا أن يكون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وما أنت قالوا أورن دونان مقعون من إسلام كشيئا وما أنت ناركم مجرين أنكم walaal islaamnimadu waa nicmo weyn oo ilaahay na siiyey ilaahay aan ugu xamdino Abu Talib nabigeena adeerkiisa sallallahu alayhi wasallam markuu sankaraad ku qabtay nabigu uu ziyaartay markuu u tagay waxa ag fadhiyay Abu Jahl alayhi la'na marka abu nabigu xagga madaxa ka fadhiistay adeer qul la ilaha illa allah hal mar kaliya la ilaha illa allah dheh maalinka qiyaamaha ku shafaacad qaadiya bal dhageysta hal mar kaliya markaasuu Abu Jahl Abu Talib uu aamusay xagga kale waxaa ka fadhiya Abu Jahl baa soo jiido ku yidhi atarghabu can millati Cabdilmuttalib Abu Talibow adoo gadahaya diintii Cabdilmuttalib ee awowga aabbaha iyo aabbayaashii aad ka soo gaadhay miyaad maanta ka tegaysaa Muhammad warkiisa qaadanaysaa markaa buu aamusay haddana nebigu sallallahu alayhi wasallam in yar kadib uu la hadlay adeer qul laa ilaaha ila allah waxaaju laka cinda allahi yowma alqiyaama dhagaysta hadalkaas in yar dhaqdhaqaaqa naga daaya in yar waa dhownahay waa soo gaabinaynaa markaa buu laa ilaaha ila allah dheh uu aamusay Abu Talibna xagga kale Abu Jahl baa fadhiya bal waa xaqii baadilkii baa isgara fadhiya دعوة حق إيو هي دعوة باطل والصراع لبدا ما كلا حران وقو سيدا بنوني دا لبا قلوس كسهور جيدا مروا بقو عياران كون كان قبيقيس بنوني والقو عياريا وقادا يعني كو عياريا حق إيو هي باطل كل بقولة دي الددال سريسا أي أدونك قبصا أهل الباطل كو هدين نقد ددال سريان shar bay adduunyada ku fidinayaan fasaad bay adduunyada ku fidinayaan dulmi bay adduunyada ku fidinayaan been bay adduunyada ku fidinayaan fisq iyo fujuur bay adduunyada ku fidinayaan ahlul haqq haddii dadaalkoodu uu kor marana khayr iyo wanaag iyo ihsaan iyo cadaalad iyo maxabo iyo nabad ay adduunyada ku fidaysa siraac labada qolo ilaa qiyaamaha wasaysanaya ilaa banka qiyaamaha laga soo baxayo حقنا إلهي عز وجل يا أنبيدي سأيا كمعلمين يا ملائكة
باطل كان إبليس يا شياطين يا منافقين يا يهود يا نصارى كمعلمين حزب الله يا حزب الشيطان ما المعصية مركات كجرتو حزبك الشيطان كاد وقرقرتو وقو مسكين مركات دحفر ده خير كشقين يصير خير مغلي يصير حق حزب الله بات كبرتو وقو حق إلهي بات كشقين يسا حقنا وحافظ يا محمد عليه الصلاة والسلام حق كلنا أبو طالب أبو جهل بافديا مر النبي قال الله ساسويا مر أبو جهل بالله الله ساسويا فما أنت سودك آيات القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين كذا دقوا جعلت هذين مسد بالغيري لكن إلهي قودنا سجى هذين بلال الله رالك النقطة بالله شيء مالين مالمها كمد أسوق دعاء سنة إنه يري إله هداية دقعنتي سكوها النبي محمد دقعنتي سأنا كي يلين بمحل بيودي بركاس الله يقول بلال وهذا الكلام حاضر ترى والله وارنتي هدي النبي محمد وعد هدين يو أنا كهداية يمسوا قادين أديرك أبو طالب وهدين لها بيودي أديرك أبو لهب وهدين لها بلال وحبشية يا إلهي هذه أبو طالب ومكي وقريشية ونبي محمد أديركينا إلهي ما هدينين سلمان وفارس يا إلهي هدي جل وعلا ها وليد بن مغيرة وقريشينا والله هدين واي الهادي وإلهي يا هداية هي مركا هداية واتيد توفيق ذاحد وافجنت إلهي وحي عد كلام هيسو لكن تصدق ذلك إن حق الله تصو ودعوة الله قارسيو والله براروجيو والله نصلحيو وناق الله فرو ومعروف وحماها الله قربو تاسوا وظيفة الأنبياء وشغد النبي كان الله صادري وأنا شغد الله قد دوني أمد النبي محمد إن قبطه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء marka hidaayada ilaahay baa haya Allah inagu soo hidaayada Abu Talib ka dhacday naftu oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ya ammi saasul ya ammi la astaghfiranna laka ma lam unha anka bukaydi ya ammi adeer hada marba adigu kelmada ay oran weeyday aniga oo leedahay ala millati Abdul Muttalib ban ku dhiman adigu tiri aniguna ka tagi maayo inaan dambi dhaaf ilaahay ku weydiiyo ilaa inta laga reebayo ka hor adeerkii oo ku dhintay xaaladaas ayuu nabigu bilaabay inuu u duceeyo yiraahdo ilaahu adeerka u dambi dhaaf ilaahu adeerka u naxariiso ilaahu adeerka u dambi dhaaf ilaahu adeerka u naxariiso asxaabtina way maqleen markaa bay adeeradoodii aabayaashoodii gaalnimada ku dhintay duco u bilaabeen markaas ilaahay yiri ma kana lin nabiy والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم عجيب وجعل النبي قادرين نركب بدادا إنه سلاني ما كنتم maalintii fatx maka uu nabigu furtay sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr as-Siddiq ba aabihii oo gaboobo in dhabeelay buu nabiga u keenay Abu Quhafa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa saxaabiga kaliya ee isagii saxaabi noqday aabihii saxaabi noqday hooyadii saxaabiyad noqotay xaasaskiisii saxaaba ay noqdeen ubadkiisina asxaabu Muhammad ay wada noqdeen أبو بكر الصديق كلية وايو وحوها نك وقول قال بحين بدن بوها مركز دين الدجال كي يدفع عيق وقول دجال بدن وقول فكر بدن نبي قعد إسقى وقول له مجرين ما دام الدجال كيسي بقول كي بقول وقول يدينته إلهي وحوه أبا الجدي لبدي سي والده دأه إلهي إنه هداية السيء فتح مكة كان أبيه أو عند الله markuu nabigu dadka uu laqinay tawxiidka markuu Abu Quhafa oo timihii wada cadaadeen oo xiribihii wada cadaadeen oo indharu keenuu gacantu nabiga gacanta u saaray markuu ashahaatay
أيو أبو بكر اسكو يا الله رالك النقضين بكى بل سفي عن قصد أولا جيستا مركب النبي يقول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما أنت ومالين فرحذه ما هم مالين لقوية محال لو يسابو كي أبها يوقدها يا إلهي قوسو هذا ينار إلهي كبد بادية هذا المعني سوها وحور يا رسول الله وحن فرح لها هلك أبهاي وجوغو أذرك أبا طالب وجوغي لها أيان فرح لها بولي والفرس وحن لقويي وحق لما هبولي وحن كفر لها هلك أبهاي ما أنت أتاقيها يا أبو قحافة وأبا طالب وجوغي لها وهرت هذا كو إسلامي لها ومرك أذقو أصلا لماذا أذرك أتكفر لها أيانا نقول فرح لها بكيني بل كورم الشعور تا كورم أبو بكر كجرتين تين لكتها إنك أنا ما أنت أكتينا dadkeeni baa bila salaada dhalinyaradeeni baa maalinta ka dambaysa diinta ka sii fogaanaysa ya cid murugoonayso ka fikiraysa diintaas ma jirto dareen hatta dareenkii baa jirin ba maanta shucuurtii inta diinta islaamku agteena ay ku dulman tahayna inakuna dulmi uma ku jiranayo ogaada maalinta diinta aan u damqano ee diintan kor u qaadno ee diintan aan ka shaqeyno ee mujtamaceena diinta aan kula dadaalno waxaan noo bilaamaysa nolol macaan oo cusub ay noo bilaabi doonta wa innahu lakitaabun aziz wa innahu lakitaabun ilaahay baa kitaabkan waa aziz diintan izz baa ka buuxa sharaf arzaaqad barako محبه نبتقليو عدالة خير وناقودن عزي با دينتا كبوحا هذا الكتاب كشغينا سدي امدنا مجتمعين الدين وقم وقلهين وويلشينا قبلهين وبدكينا دين كتربيدين لهين وحافظهين قبل الصلاه ان لوغو ويلها ووحي منكرنا كمنكر كودنا غعنتا قبل لهين dadkana wanaagiyo khayrka aan fari lahayn oo dhalinyaro odaynta gacmaha isqabsano aan nuqsaanta diinada xaafadeena sidaan u zuulin lahayn hadaan ka shaqeyno diintaas kor loo qaadayso ogow aziz waa kitaabkan ciddi diinta qaadatan ilaahi waa izaya الله نفهم شيء إن شاء الله هذا يا وديار الدين تاينو قاتو عز شرف أرزاق نبت قليو بركو هل كدين تدقتا إلهي هذا أنا كودك يوجو هل كدين الإسلام كأدقتي إلهي كودك تقول كدقت تقول كدقت هذا دوك سدقي هذا دين تكرر قادو سيكر دين تكرر لوجو قادا دين بانو نولانا يا diin baan baranayaa diin baan umada ugu yeedhayaa dadka diin baan ku xiriirinayaa diin la'aan qofku waa ku goynayaa qofkan xiriirinayo diinta islaamkan ku xiriirin oo qofka islaamnimada ku qadarin qabiil ku qiimeyn maayo lacag ku qiimeyn maayo qurux ku qiimeyn maayo waxa ku qiimeynaya waa diinta islaamka awthaqu ura al-iiman al-hubb fi Allah wal-bughd fi Allah nabi awthaqu ura al-iiman والإسلام ما ذهين لدقه وح إسلام ما كهوسيسها أقبلين لقى مسلم كوا الله نداره هل بليون يتضرب بقول أو مليون أو شخصي أو الدنيا كنا ولا مسلمين ولا الله يا إد أديك كان الله ندرسن ما جرتو بركة وين أكو هذا الشقينا إسلام نمو مسلم أنا islaamnimada isku jeclaana islaamnimada isku qadarina islaamnimada isku buuqana islaamnimada isku damqana islaamnimada isku tubna sidiintaas agteena marka qiimo u yeelata bay culimadu leeyihiin waa inaan waqtigeena diinta ku bixinaa waa inaan ka shaqeynaa waa inaan maalkeena ku bixinaa waa inaan ilaahay dartiisa u baxnaa in sha Allah hada in sha Allah ayaa u diyaar mar uu jamaacada ilaahay dartiisa u socday inuu raaco هاي الريحان بروين ما شاء الله ما شاء الله مساجد كي الشريف شرفه اللهم نحرسه ودعوده كبل على وين مركز كي دعوده والله مركز كي دعوده منبع الخير وعمله وجوه الرئيسي دينتي انه كسو غشا جيسك افريكا حافظنا جوجتان تصدمه زي لا مقدشو مركة براوي
meelihii saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin ay markay risaalada geeska Afrika gaarsiinayeen ay ka soo galeen weeyaan marka diin baa dhulkan u imanay inaku markeena horeba hadii ajdaadena la eego oo taariikhdeeni dib loogu noqdo adduunyada waalidadeenu dalkan uma iman diin baa u yimaadeen shaqadii ajdaadena han qabsana insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amniga iyo iimaanka Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel ay joogaan muwaafaqeen midnimo Allah siiyo dad badan oo walaalaheena ayaa ducad codsanaya in loo duceeyo qaarna la jooga qaar inaga maqane qof walba halku ka kurbaysay kurbada ka dareemayo Allah ka faydo kuwa bukana caafimaad sariic Allah siiyo kuwa ubad doonayana ubad wanaagsan Allah ku arsaaq kuwa arsaaqadu ciriiriga kaga jirtana arsaaqad waasic oo barakaysan oo xalaal Allah siiyo diinta iyo taacada Allah inoo macaaneeyo nabadana Allah inoo adkeeyo sallallahu alayhi wasallam aan wax yar fariisan insha Allah aan wax yar fariisan insha Allah ikhwati fillah Allah subhanahu wa ta'ala ya maaskale maanta waa arkaysaa ikhwati fillah wixii aad maartay mobile ama dhalada ka fiirsataan sheekheeni weynaa Sheikh Hussein Ali Jabuuti oo horteena maanta fadhiyo ikhwati fillah masaajidkan noogu yimid sidoo uu sheegay saxwa masaajidkan aad arkaysaan dacwadan tabliiq meeshii lagu bilaabay asalka ahaa markaskii weynaa dugsigii loo dhisay Sheikh Sharafow ilaahay oo naxariisto u dhisay waa yaalan meeshan dugsiga hadda aad arkaysaan oo kor ah dacwa loogu talagalay ikhwati fillah waa meeshii lagu bilaabay maantana waa noo yimid sheekh ikhwati fillah ilaahay dartiis mu yimid misajaceel oo anaga noo qabo xaafadu u qabo u yimid ikhwati fillah ilaahay dartiis mu imaad ما جعلنا شيخ إلهي درتيس مو جعلنا إلهي درتيس ما يجعلها إلهي درتيس وشيخ إنه جعله أنا إلهي درتيس مو جعلنا إلهي درتيس مو جعلنا شيخ وأنه يميت خير الله سيو إلهي درتيس نوصل باغده أنا قنا وحن جعلنا هاي مقال الذي إلهي درتيس إنه آدم ديار مونا يا يسقرنا أفر بلاد إن شيخ ماشي سوق باغن يسقرنا يا أخوتي في الله أنس ديارين إخوتي في الله دعوة ماشي لو بالله بواي أنا جانا أن كعنو إخوتي في الله حافظ أنو كعنو دلنيرو يوايل أنو كعنو دينتان والوعي الزوباء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وحو يري أنا وحان أهين قولوا إلهي أودلي وحان عزوني مركان إسلام كقاضني إسلام كمالان هنا هذا عزي شرف كرادن ودلو بينا إخوتي في الله مركينا عزي شرف يلا مرنا إخوتي في الله إن شاء الله تعالى أن مارتي سود ديارنا إلهي درتي سيسان وقبح لها إنتان مقالك لآذن حافظين إخوتي في الله أن كشقينه لأن يرد الله كعا ذات كان صلاة الدكانين أن أيرن قالوا أتقي مينو مسلمين أن أتقنو أن صلاة الدكانين إلهي سبحانه وتعالى أسيجي أن كسر على المساجد إن شاء الله إخوتي في الله إنت أصلا سدر دار مينا إن شاء الله شيخنا خير الله السيو سيدنا صوب بغضي إلهي درتي سنو صوب بغضي أنا قنا إلهي درتي سان أجعلنا نكون بغضنا إن شاء الله إلهنا أقبل إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله